الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى وحن ويديساننا كلن كان إنه نوغدي وكلن بركيسان. إلهي سبحانه وتعالى نحريستي سكسو دجيو، وعن الله سبحانه وتعالى ويديسنا يا عربك قلبي نكسو وكلمة حقه. إلهينا سبحانه وتعالى قلبينا يدقيه نبا أفره نغانا ديغو كو هذا الكدقي استكيس وناكسن الراعة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم الكاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولا ليال موضوع واسدة مقشين أسبابتي أي لدعضي دولدي مسلمين تا كدي سنتي meesha la yiraahdo Andalus
oo qayb Yurub ka mid ah qaaradda Yurub waxaan u qaybin doonaa dhowr qaybood afar fasal baan u qaybin doonaa hadalka si aan u soo koobo waayo taariikh 800 oo sano ah 8 qarni dawlad jirtay iyo ummad dhulka Yurub xukumaysay 800 oo sano maaha 100 sano iyo 50 sano iyo 40 sano in la soo koobo taariikhda 45 sababay la dhacday daqiiqo ama 40 daqiiqo ama 60 daqiiqo waa adag tahay laakiin waan soo koobaynaa afar qaybood baan u qaybinayo qaybta koowaad waa muqaddimaat ama hordhacaas laftigiisa dhowr noqdaan ka dhigi doona qaybta labaadna waxaan ka dhigi doonaa ama fasalka labaad sababihii keenay in la furto Andalus oo dawlad islaamka ay ka dhisanto oo muslimiinta ay dawladii meesha iyo xadaarad weyn uga dhisanto fasliga saddexaadna asbaabihii keenay markaa inay dhacdo fasalka afraadna waxaan wax yar ka taaban doonaa cibrooyinka iyo duruusta iyo casharada inoogu jira ee aan maanta annagu waaqiceenna iyo nolosheenna maanta caalam alislaami guud ahaan iyo Soomaali gaar ahaan aan ka qaadan karno intaasaan u qaybin insha Allah muqaddimaadka aan u imaado muqaddimada u horeysa waxa weeye ahamiyatu daraasati taariikh muhiimka ay tahay ama ahamiyadda ay leedahay in la akhriyo oo la daraaseeyo oo la barto taariikhda dhacdooyinka iyo sooyaalka quraanka kariimka ah ilaahi subhanahu wa ta'ala wuu nagu baraarujinaya arrintaas iyada in taariikhda la barto ummadihii hore iyo waqtiyadii hore iyo qarniyadii hore wixii dhacay in la fiiriyo ummaduhu siday u noolaayeen in la fiiriyo afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aaqibatu alladhina min qablihim afalam yasiru fil ardi miyaanay dhulka marin Soomaalidu waxay tirahdaan niman dhul marin dhaaya ma leh macna waxa ma arkaba qof aan taariikhda iyo dhulka iyo adduunka sida looga nool yahay aqoon waxa ma arko wuxuu wax arko isu malayna wax ma arko wala daarul aakhiratu khayrun lil ladina attaqaw afala ta'qilun ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aaqibatu al mukaththibin dhulka mara oo bal eega dadkii aayadaha ilaahay beeniyay aan raacin caaqibadoodu sida ay noqotay ciribtoodu sida ay ku dambeysay fiiriya dadkii aan raacin hanuunka ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay taariikhdu ilaahay wuxuu leeyahay sunno ama qaanuun aan isbedelin sunnat Allah fi alladhina khalaw min qabl waxa la idinka la idinku maamulayaa qaanuunkii lagu maamulay ummadihii idinka horreeyay iyo qarniyadii idinka horreeyay walan tajida li sunnati Allahi tabdilan walan tajida li sunnati Allahi tabdilan ismana bedesho laazim muqaddimada koowaad marka horta waa inaan taariikhda oo ay ka mid tahay Andalus oo wax aad u fara badan taariikh hore iyo mid dambe ba laga qoray horta waxaan walaalahay baraarujinaya muhiim inay tahay in taariikhda la barto taariikhdiina Soomaalida barta taariikhda ummadda islaamka barta taariikhda adduunka barta taariikhda dawladaha iyo ummadaha inuu ku hareeraysan barta wax akhriya fiiriya wa amar ilaahi subhanahu wa ta'ala afalam yasiru fil ardi fayanzuru wa qodobka labaad maxay tahay Andalus maxaan si Andalus u soo qaadanay oo meeshan loogu soo daray ilaa cinwaanka meeshan baa wuxuu yahay mu'tamarka sida u jeedaan yaani ummaduhu sida ay ku dhismaan iyo sida ay ku burburaan sababtaas loo soo qaatay muslimiintu Andalus saan sheegay 8 qarni bay xukumayeen sanadkii 93 hijriyada ayaa la furtay boqolkii sano oo koowaad oo hijradii nabiga kaleey salaam marka laga soo bilaabo aan dhamaan
ayaa la furtay khilaafadii umawiyada khaliifada waliba waxa ahaa marka al-Walid ibn Abd al-Malik ibn Marwan oo Dimashq saldhigiisu u yahay dawladda islaamka waxaana laga soo saaray muslimiinta 895 macnaha waxa weeye 800 sano oo 2 sano dhiman waay 2 sano dhiman marka Andalus tan la sheegayana waxa weeye dhulkan hadda la yiraahdo Spain iyo Portugal iyo koonfurta France dhulka Faransiiska qaybo kamid ah Switzerland intaas ugu weynay dhulka ay shamlisay Yurub dawladda Andalus waxay soo martay maraaxil waxaan u qaybin karnaa maraaxisha ay soo martay ama heerarka ay soo martay Andalus waxaan u qaybin karnaa 6 marxalo marxalada koowaad marxalatul fath bay ahayd waa furashadii أمير وحا وقويغا أفريكا كأها موسى بن نصير نيرادو أيا دولة مسؤول وقاها آغاز إلى يوروب لو قلوا بايانا قائد كاس أما هقاميهاس أيا عهدي قيسي لفرطي أو يساقا هقاميه كاها وحا كو حكتي مرحلة الولاد أما مرحلة دي أمير هذا أما قبرناتورياشا أي صومك أما قدومياشا أي صومك عوضو خلافة صومك عوضو أو دمشق لقى صومك عوضو لأن دولة الإسلام كو مركز أندلس إلى تشاينا أي كلا جينيت هل دولة بعد one only هل دولة أي أنت كفر دي هل حاكم أي أنا حكومة أو أمير المؤمنين في دمشق عبروين كوجرا مركا دلن يروي حويه هذا إذن قبل يرير أو 500 كيلومتر 200 كيلومتر يا مسلمين تهدي اسكو دليان iyo wadamo yar yar oo koobara aad aragteen 54 wadan u qaybsan China laga soo bilaabo xuduudeeda ilaa Spain iyo France hal nin bay amarkiisa ku socotay marxaladaas marka waxa la dhigi jiray marxalatul wulaad ama marxaladii gudoomiyeyaasha gobolka Andalus kadib waxa bilaabatay marxalatul khilaafa waxa la yiraahdo oo khilaafadii umawiyada ee Andalus furatay ya ahdigeedii ayaa dhinacan bariga ee Dimashq laga qabsaday khilaafa Abbaasiya qabsatay khilaafa Abbaasiya markay qabsatay ragii amiiradaas umawiyiinta ka soo fakaday nin kamid ah Abdurrahman ad-Dakhil la yiraahdo ya ayaa u soo cararay dhankan Andalus kadibna adigu turunturooyin dheer iyo dagaal dheer wuxuu sameeyay dawlad inuu halka ka asaaso dawladda umawiyada marka khilaafku halka ka sameeyay way ka goosatay marka khilaafadii koowaad khilaafo gaar ah bay noqotay iyo dawlad gaar ah oo ninkaas uu nimankaas way madax ka hayeen iyo caruurtiisa marxalatul khilaafa la yiraahdo wali dawladdu marka xog bay lahayd waxa ku xigtay marxalad afraad oo la yiraahdo marxalatud duwaylaat marxaladaas waxa way dawladda yar yar oo gobolaha bay u kala jajabtay dawladdii ballaarnayd oo khilaafada ahayd oo 300 sano taqriiban muddo ku dhow 250 sano bay markaa intaas u socotay saddexda marxalo hore marxalada afraad waxay gashay duwaylaat maxay tahay reer walba magaalay goosteen qabiil walba tuulu goost dawlad buuna ku magacaabo ana intaan ka taliyo yiri marka marxalatu duwaylaat tawaa'if baa la yiraahdaa tawaa'ifna waa qabaa'iladii baa loo bixiyay waxbaan ka tilmaami doonaa insha Allah ta'ala marxalada shanaad waxay ahayd marxalo lagu tilmaami karo marxalatu tarmiim ama marxalatu ma qabla suquut dhicitaankii ka hor in la isku dayay dawlado kale inay ka asaasmaan oo dawaa'iftii intay baabi'iyaan kuwii qabiilada ahaayoo meelaha tuulooyinka haystay dhowr iyo 20 dawladood oo yar yar oo gobol ah oo gaalada jisiye siiya oo canshuur siiya meeshii awal gaalada ay ka qaadi jireen dawladahaas waxaa timid dawlada xaaqay laba dawladood baana u weynaa isaga dambeeyay dawlatul muraabitiin iyo dawlatul muwahhidiin labadaas dawladood oo dhinaca Morocco ama Afrikada waqooyi ka yimi oo soo gudbay oo u soo hiiliyay muslimiintan hadda la qaybsaday ayaa iyaduna ka asaasantay marxaladaas waxa la dhihi karaa marxaladii waxay ahayd muqaawamo in bal dib dawladdii loo asaaso in gaaladii la iska celiyo in jihaadkii la nooleeyo in
أندلس ماشي أي باقي كسي أهاته والدولة الإسلام كباقي كسي أهاته ماشي عن يوروبا أي اللي بدأ الدولة دود قيبة كمية كشقيين ودولة المرابطين هي دولة الموحدين. مرحلته وحال ديه كرا مقاومة السقوط أما كهورتجا دعيتانكي أندلس. مرحلة لحاد وقدام بيسة ومرحلة السقوط. مرحلة دي أي بربريسي وأي بلابتي بربركي دولة أندلس ويسوق قابتي دولة الموحدين تأيا سوق قابتي قال دي ويسور قال عليه جهات كباير هذا سبب أن شيء دونه لا دقال لك قال دي إسك علنتي دي إسك عابنتي دي أيات نماتي dadkii muslimiinta ahaa iyo dawladihii islaamka ee markaa ka jiray Andalus waxa galay sababo aan tilmaami doono oo keenay inay waxba iska caabin kari waayaan meeshiina ku sii nagaan kari waayaan taasina ay keento markii dambe inay dhacdo waxay ku soo hartay markii u dambeysay qarnaata mamlakatu qarnaata ama Grenada hadda meeshan ay dhahan Spain bay ka mid tahay magaalo ka mid ah taasay ku soo hartay Andalus iyadiina muddo kadib way isdhiibtay wayna burburtay wadankana waa laga soo xaaqay wixii muslimiin ahaa waxa la kala dooransiiyay imma al-maut ina dhimato inaad gaalowdo nasraani noqoto iyo in dalka aad ka baxdo oo badda ka talawdo oo Afrika iyo dhinaca Morocco soo talaabto dad badan baa marka soo talaabay dad badanna qaar way ka noqdeen diintii iyagoo yaani naftooda u baqaya qaarna waa la xasuuqay maxaakimu taftiish wax la yiraahdo loo sameeyay heer la eego xataa guryaha la fatisho wiilku ma gudan yahay mise ma gudna duu gudan yahay reerka inay muslimiin ahaayeen baa la ogaanaya waa la xasuuqaya ama waa la baabi'inaya marxalada saddexaad limaada Andalus maxaan Andalus u soo qaadanay oo mu'tamarku u soo qaatay maanta inuu uga hadlo waxa weeye caalam al-islaami adduunka muslimiinta ee maanta ayaa wuxuu shabaha ama u eg yahay Andalus sababihii ay la dhacday wax u eg oo badan oo ka muuqanaya ilaan markaan wataan sheegnay taariikhda aad daraysiis waxaad garanaysaa sababaha ummadaas ku burburtay halkan ma ka muuqdaan cudurkaasu qofkaana ma haya ma samahayo cudurkan calaamadihiisi ma ka muuqdaan qofkan isagana jiradii ma ka muuqataa ma kama muuqato marka saasaan u soo qaadan caalam islaami maanta inuu dhaco waxa keenay Andalus ayuu u eg yahay caalam islaami maanta sababuhu u eg yahay waxa weeye caalam islaami maanta 54 dawladood ayuu u qaybsan yahay inta hadda la sheego la tilmaamo منظمة اللي يراهدو OIC Organization of Islamic Cooperation مركي هرانا conference بالليجري أيو كم يديسية كنتون يافر تدولة كنتون يتدوب الدولة مرمر بيجارم بنو ملاين كنتون يتدوب داس فيري الدون كلا عكتا أوجب بدن يجهز الدون كإذا ماذا أوجب بدن يجعله الدون كبترول كيس يجعله الدون كذهب كيس يجعله لولكودو كيال كنتوني أفرتاسو كيال كنتوني أفرتا مدحوينه أما بقر أما سلطان وحربتكم مجعوه أما أمير المؤمنين أنت بويسكم مجعبان دويلات الطوائف كي أن هذا السوشيال إنه موجهين مسوميكا هاو يوجه وحوي كنتوني يا أفرتاس يجو أنت أصبح يسته ما أنت هرتودا هل مجاله أو كم ذا أيال لجو قلنا يا ولا قلنا يا ولا جورع يا كنتوني يا أفرتوا داونا يا حنو قام كلام أرنت أسوحي كذا على أندلس وقت دويلات الطوائف كا إيه أن سوشيال إنه تضبي الله باتنكا دجمو بقرطويو قبل دولة قبلات سربتكم ما وعو أديها
تضبية اللباتن اللي قد فهم إنسان بان إذن شرح حيان دولة قبولات تفهم إنسان علن كذا علن له بقرطوية له ريره باللي هنا مركز ساسون بأهيد تضبية اللباتن كاسو جوجة أيام مقالوين كي أندلس قالوا أنت دينا فرانس كتمي وكسو دوشة أي قلطي وي قلطي قاربي قدوميسي مقالة بربشتر لي راهضو سيدا غزة هدا لو قدومينايو يا مقالة داس بيه بلغا قويي ورقي هوري الدولة ديسي وانسو الشيء دوناي رقي هوري الدولة ديسي يوروب او انبيها مقالة قريها اللعبين ايا لغا عبايي oo xaafad walba ay tuubadu tagaysay biyo macaan oo qabooba tagay biyihiiba magaalada laga gooyay oo cuntadiiba laga gooyay oo wax allaale dhaqaale ama ganacsi wixii soo gali lahaa ama ka bixi lahaa baa laga gooyay afar bilood baa sida xisaar lagu hayay ilaa magaaladii iyada iyo dadku cunaan iyo xayawaanaadkii ku jiray meesha gaajo u dhintaan markii dambena isdhiibaan kadib iyagoo waliba heshiis la laga galay gaalo heshiis ma ilaaliso ila marahim Allah qof dhifa ma waana isku mid weey kufru millat waahida ma ilaaliyaan ama nasaarada ha noqdaan saliibka wata saliibiyiinta ama kuwa yahuuda ma ilaaliyaan ballan innahum la aymana lahum la ahda lahum magaaladii iyadoo heshiis inay isdhiibto oo la badbaadiyo lala galay ayaa dhagta dhiiga loo daray gabdhihiina la kaxaystay oo la qafaashay wixii haray inta kalena meesha lagu laayay lagu xasuuqay 27kii boqor ee aan sheegayay markaas qusuurtooda qaarkood gabdhaha jawaarida ah oo adoomada ah ay ku haystaan qaarkood 1500 loogu tagay gabdhood oo ninka amiirka uu leeyahay jawaari qaar baa waxay ku soconayeen sacfaraanka iyo wardiga qasriga in la goglo oo gabadha uu jecel yahay jaariyada aan ciid socone ay socoto sacfaraanka iyo cuudka iyo wardiga ay ku socoto qasriga dhaxdiisa lacagta uu ku bixiyo dhinaciisana waxa lagu qalanayaa magaalo dhan oo muslimiin ah magaalo asaas marka loogu qashay magaalo asaas loogu qashay ilaa Andalus dhameeyay 27kii dawladood oo daawanaya 27kii dawlad goboleed dawlad qabiileed dawlad reereed magacyadooda idin sheegi doona hadda u maleynaysaan inaan idinka idin maagayo ama Soomaali maagayo ma idin sheegi doona magacyadooda magacyo carabi ah qabiilooyin carabeed marka saasay ugu egtahayo maanta Gaza 20,000 dadka la dilay korbu u dhaaf 10,000 oo kamid ilmo yihiin iyo dumarna 5,000 ilaa 6,000 yihiin 10,000 waxay ku aasan tahay guryaha la dumiyay hoostooda magaaladii 178 la dumiyay bishii saddexaad socota cuntada biyaha daawada waa laga gooy iyo gaaska Gaza mise laga ma gooynin ma aragtaan hadda mise laga ma gooynin idan taariikhdu waa soo noqonaysaa saas darteed buu ilaahay leeyahay afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aaqibatu alladhina min qablihim maxaa u dambeeyay marka dawladaha tawaa'ifkaas maxay ku dambeeyeen kuwanuna saasay ku dambeynayaan shaki kama jiro haba yaraatee haddaan xaaladooda wax iska bedelin shaki kama jiro maxaa dhacay سنة الله بالأخرين ولن تجد لسنة الله تبديلا مقدمات أفراد ومقدمات كما هرعا وختمة وحوية أندلس وحنو سوق قادرين مركان كإمام الدولة لها إسلام كجود ضدك عن لحظ لا يهدى الصومالي لا بي أندلس إبرأتها أيضا oo wadcigeedu shabaahda wadcigi Andalus marka ay burburtay as-suqut asbaabti ay ku burburtay ayaa inaga muuqata Soomaali hadaan
iyadoo guud ahaan ummadda islaamka ka muuqataan la wadaagno laakiin baan meelaha qaarkood kaga duwannahay oo kaga sii xeel dheernahay saas darteed baan ka sii burbur badannahay maxay tahay oo xagee ka shabahdaa waxay ka shabahdaa kasratu duwaylaadka yaryar soomaaliya hal dowladay ahaan jirtay hadda meeqa calan waa hal calanay ahaan jirtay hadda meeqa calan waa hal madaxweyne ahaan jirtay hadda meeqa madaxweyne waa qolo walba waxa alalaastaan marka madaxweynihiinu yimaado sooma marka halka way isaga egyihiin saas darteed in Andalus la soo qaato way keenaysaa waqtigii khilaafada Andalus hal dawlad bay ahayd baa oo dawladii umawiyiinta khilaafatul umawiyiin ay ka jirtay boqorka ingiriisku baryu warqad ugu soo qori jiray khaliifatu naasir al-umawi fi qurtuba oo saldhigiisu yahay waraaqa ilaa hadda madxafka yaala oo uu ku baryootomayo oo wax weydiisanayo kaalmo weydiisanayo ayaa yaala marka Andalus markaa saasay ahayd in lagu soo dhaco iska daaye iyada la baryayay iyada laga amar qaadanayay iyada laga haybaysanayay lagumana soo dhicin magaalo kamida Andalus iyadoo khilaafadaas ay joogto inay gaaladu inta ku soo duushay ay magaalada biyaha iyo cuntada iyo ka goyso magaalada ay balaysata xaraan bay ka tahay laguma dhicin maantana waa sidoo kale iyadoo 54 dawladood ay joogaan magacyada leheen magacyada macnaha lahayn wax macna ay leeyihiin ma jirto wax macna ay leeyihiin iyo wax miisaan ay leeyihiin ma jirto waxaan idin sheegay inaanay miisaan iyo macno lahayn maxay idin ku daliila UN bay ku jiraan 54 tuba waxay oranayaan qazaha laga qaado cuna qabataynta markaasa hal dawlad ba farta saa u taagaysa bas fartu saa u taagaya nin baa u jooga fartu saa u taagaya leeyahay veto alu kala yaacaya meesha alu kala direeyaa what kind of veto hayta veto maxayta dulmigu hajiro aan ku dilo aan ku gowraco hana hadlin way macnaheedu marka saasay u shabahdaa marka iyadoo taas way shabahada tan Soomaalida markaan qoyskeena u nimaadno ayay sidii oo kale tahay maanta hal dawlad bay ahaan jirtay 10 dawladood maanta ka taagan 10 calana ka taagan inta kaliya ma aha reer walba mid walba waa reer walba reer buu hadana si ximanaya dhaxdiis bay dhaxdoodii hadana u sii kala burburayaan hana ku ceebaynina Soomaalida ee kaliya ma aha waa duwaylaatu tawaa'if caadadeeda weeye sidaas ay ahaan jireen ba Andalus basaas ay ahaan jireen maxaa dhacay duwaylaatu tawaa'ifka ayaa waxay leeyihiin calaamado shan ah bay leeyihiin oo laga helo ee ka fiiriya wadankiina ka fiiriya Andalusna markaa way ku dhawowdi koow waxa weeye horta daciifnimo tabar yaraan aan cidina ka haybaysan iyo iskhilaaf baa lagu yaqaan duwaylaatu tawaa'ifka yaryar koow waxa kale lagu yaqaan fakhri iyo saboolnimo iyo inkar inay ku dhacdo iyagoo khayraadku ka buuxaan ay waxba cunaan waayaan oo wax lagu sadaqaysto qamadii lagu sadaqaysto saddex adduunku inaanu warkooda ka haybaysan hadalkooda la fiirin miisaan ayna lahayn afar kaaga darane iyaga isu xoog leh iyaga mid kamidii mid kale lama hadli karto haday hadasho habeenka 100 baa dhimanayo 50 baa dhimanayo ama kan cadawga ah hal qof inuu dhinto uma quraan xataa ama xukunka uu waayo xataa uma quraan dulligu meesha ka gaareen marka duwaylaatu tawaa'ifka waa saas caadadood shan wax khidmaaho ay dad u tarto dad baa ku shaqaysta duwaylaatu tawaa'ifka kuwii Andalus amiiradaas aan sheegayo qasrigooda la goglayo saxfaraanka ya dadkoodu way gaajaysanaayeen duwaylaatu tawaa'ifka hadda joogana oo kuwa Soomaalidu kamid tahay qusuurtooda iyagoo laga heesaayo oo laga jaandaynayo oo laga cunaayo maahlada wataaba
oo wixii doon la sameeyay baa dadkooduna darbigooda ku dhimanayaan ama gaajay u dhimanayaan ama roob iyo daad baa qaadaya ama abaar baa xaqaysa waa caadada duwaylaatu tawaa'if dawladaha goboleedyada daciifka ah ee taariikhda islaamka kuwii Andalus ka jiray iyo kuwa Soomaaliya maanta ka jira ama meelaha kale oo Liibiya iyo Yemen iyo ka jira waa isku mid waxaan u imanayaa marka fasliga labaad sababtu maxay tahay Andalus lagu furtay Andalus la iskama furan Yurub qayb ka mid oo 5 dawladood maanta ku fadhiyaan adeer hadiyad looma bixin 800 qarnina ciyaar looma joogin sababaha waa soo koobi karaa kow الخلافة الإسلامية القوية باكو واحد دولة إسلام أو مدعة أو حوغلة كو إذن شرف إسلام وحيكون دعي كرتا كسنو دولة إسلام أو كلية أو حوغلة لابو الوحدة والأخوة والترابط ونبذ التفرق هي تنازعات هي قبليات مدني ماذا هي وذا شركة ayaa lagu furtay Andalus dawladeedana lagu istaajiyay xogeeda oo laga tagay qabayaaladaha loo kala jajabo marka Arab iyo Barbar iyo maxaan ku sheegay qaxdaaniyiin iyo maxaan ku sheegay Adnaaniyiin kullu waxaas way wada socdeen saddex dawladda oo fariidadii jihaadka iyo difaaca ummadda u taagnayd ummaddaanuna hadday jihaadka ka tagto oo dawladeedu jihaadka ka tagto oo ummadeedu ka tagto way dhimatay wayna ku deysay afar manhajka saxa ah iyo aqeedada saxiixa oo la raacay shan cilmiga oo la qiimeeyay iyo culimada oo la qiimeynayay oo la dhageysanayay oo la raacayay oo la tashanayay oo warkooda la dhageysanayay muftiga caalimka ahi khaliifadu azili jiray oo ka xoog badnaa haddana khaliifadu isaga odayaasha culimada uu doonan u yeeranaya cayananaya u yeeranaya qalin buu ugu yeeraya qalin buu maxay hadli karaan maxay dhigi karaan maxay sheegi karaan masaakiintaas baahan oo laga bixinayo guri kiradiisa lix nazaahada transparency-ga kafaa'ada dadka aqoonta leh dadka wax ku oolka ah oo loo dhiibo manaasibta iyo jagooyinka haday wasiirro yihiin haday hogaamiyaasha dagaalka yihiin haday maxay yihiin arintaas ay ku socday waayo waxa furtay meeshaas Andalus ciidankeeda Tariq ibn Ziyad saad ogtihiin Tariq ibn Ziyad wuxuu ka shaqeynayay oo askari u ahaa ninka la yiraahdo موسى بن نصير بوها مركا موسى بن نصير بوكوس شقيني إسقا فرتي ما أنت إلى هذا جبل الطارق ولا بورتي وكجد بي جبل الطارق ولا هذا تضبع قياداتك ومضى أو مركا همت عالية لها أو مضى مارك تسمي لها أنا إما هذا وقتي دقيقة أسباب السقوط أسباب تمركا كانتي محيطها واحد كان كو عقيدة دي انحراف أو لقى انحرافي إيو منهج كي لقيت تجي لبو قالدي أو تحالف للقلي ماشي مسلمين تلا ولا ليسن لها قال الله ولا ليستي ما أنت على مدى هذا موجودا ها إذا إنا دعيان هكا وحب الشكيو كاجلين صدح الانغماس في الشهوات إيو مع ندى إيو وحيالها الدنيا شهوات كذا أمارة ومضى وحبها يسن ولا ريال دت كان مسلمين ما هذا الشهوات إيو هيسها إيو مارة بالك كم مشغول سن هل مدفع مسوساران هل مدفع هل ورشد مدفع مسوسارت ملها هل قاري مسوساران هل مسمار مسوساران خلافة دي أول الريدي دولته طوائفك ما حكسم اسمه ماشي هل دولة كجرتي بنو الأفطس بنو غانية بنو عامر بنو عباد بنو تهجيب بنو الأغلب بنو الرزين بنو صمادح بنو الذنون يا بنو هود بنو القاسم بنو الجهور ما يدين تريا انت قبيله دي في صوماليا خش يا في صوماليا ما كنت تريا صوماليا ما بدلاه هويه اساق داروت حنوين دقل يا مريفله عدان كذا كذا هوس ما وسي دقه داروت مسيك القبيله هذا انت الدوله دو يحيى
هذا هذا مجرتين ده البهانت ده كذا ده ورسنجري ده هبل كده يساق له هبر يونس هبر شعله هبر أول هبر ابن عرب كم يساق هبر قدير أبقال مرصده ما حنكوش حواضله كل قصة بقولته وبني الجهور وين بني جهور وغير بني جهور غير بني هود غير بني بحلقة غير بني الأغلب غير بني السلام غير بني وي كل قول وحكى لهم موديننا إذن مؤامرات كنا صارت أو صعوته بيساسو كلا قيب سناين عندلو ساسي لدى عضي مصالح دو يدنوه دا قاركاه إلى الشدان أيي لدى عضي أو دنيه قود كتغان وحي لدى عضي شعب كودي أو عصبيات كان كلا راعي هذا إذنكو هذا ومدي سنتين إسلام كايدن مديي إيمان كايدن مديي دعوة إذن مديسي سنة إذن مديسي كل جنازة إياه هذا عمرك حاجة تكتان لو حاول كلا قيب سنة أنت عن شيء جاي ما حاول كلا راعي سن متى مير هالك سيدك يا الشيطان أو كل الشادية أو توج أو كل الشادية أو كل قبيلة أو واحدنا عن قوة أو واحدنا عن قوة أو عزة عن قوة أو قال يجني يقش نسوي الشيء أيها كو إيمانية مركزات لا ويسا من مدي يا شرفتي يا قرآنك يا سورة البقرة يا سورة العمران يا أنفال يا التوبة وحبة المامسة مركزات يسيرها يسوي الناس شعب كاسو مركز ساس يلين ويدعين إننا ساسين ويلينا هدينا كوان توبين وين دعينا أوجاده محا إنه قصوغن أو عبران قصو ختمية ولا ليال منهج كإسلام كعقيدة لقال يحظه ولقد اللوباء أوجاده أعداد عدو جاجا إلى هاي وكوشجي هم العدو فاحذرهم ويري هداد صاحب كدقته والله شباي أوجاده عبرة سن كفايدة سنين وحن كلو كفايدة سنين قبلية عنصرية قومية وش أولاً كرمريو ولا التنمدي إسلام ك يوم النمدي إسلام ك لقى هرمريو أو بربر يا عرب يا قحطان يا واحد لوكال بحو أما واحد هذا إنك أتيهن لوكال بحو والوجود اللوبة أوجاده ملنا لقوا مجاله عندنا يانو يدين شيء صبح فساد كنظام كسياسي يحكمكم هدو فسهادو أو شورى دي لجوايو أو عدالة دي لجوايو أن تحكموا بالعدل يا أو بأدي حرطة هيدا دتكو أي كدور الله ينقفكوا ونكسل لجوايو ومضى سويد اللودا يدنا أوجاده خيانة بعض الأمراء والعلماء والوجود اللودا أوجاده ومضى الله من ميل بيكهجاكته ومرضى يا علماء ومرضوا هدي واجب كذا جبان علماء الربائن يستاجم واجب كي أنا كهرية وأولو الأمر منكم أندلس وحي لجبتي ولا بربرتي علماء إن بدنوا كمدا أيا إسكا آموسي شب كيري وحي سعودي قارن ويد دالين لكن شعبك كما أيهلين جرجار ينصره ساسي كدنتي ما أنتنا الصومالي يا عالم الإسلامي قاركيس عالم كي دقائق أو هذا الشيء رنعة أما أمضنا السياحية أما وحنا والله بربرايرة هذا والله قص فنيا وحنا لقص وحنا لا لص فنيا لتاجرية توجا يجا محاد كربتها قال كي يجا محاد كربتها خائن كي يجا محاد كربتها خائن كي يجا محاد كربتها شقيستها يجا محاد كربتها مجرم كي يجا محاد كربتها دلاجة يجا محاد كربتها حاجة مرك إلهي النصر كسينا يا أمضوا هذا يسانو سورة قلمها عبروي ترك الجهاد والاستعداد ومضوا مركي ديار جروجا كتبت ديار جروجا ديار الهين والدبابة الهين أو مارتي بنتخ الهين أو بس طولت أنا السمين كريم بس طولت أنا السمين كريم ومضاس والله بنا يستاح حوله هذون وحمتنا وحدا كلام وحمتنا أيها الإخوة وقدام بينتي شعبك شعوبته شعبك أندلس مركي علماء أي قيليسي ابن حزم إيوه أبو الوليد الباجي إيوه علماء لم يتكاد مركي قيليين لو ما قرقارين لما قرب استاجين هاو شو على السكوت إذن كنا هذا علماء قيلين يسا أو دقيسة أو أمضى أدقيسة أو له وروحان قبيلة داني ما صعنيش نظام كان سياسي قال نلو كلا قيبية ما صعناية كلا قيبين تانية كلا قلوبيسي قال ما صعناية سومالي ومد سومالي وهل
soomaali waa hal ummadoo yar oo adduunka geeskiisa keliya ku nool dhul fiican ilaahay siiyey qof ciise leh oo sharaf leh waa inuu sidaas ugu hogaamiyo islaamkeeda iyo diinteeda iyo sharafteeda uu ilaaliyo midka yiraahdo ha iska darooriyo waa wareersan yahayo wadaadka waxa waaye qabyaalad baa wado reer hebel baa maaragtay ama maanta mushahar baan la siino xoogaa baa wax loo diiday ummadda markay saa wax ku xisaabiso ummaddaas waa ku daysay cibrada laga qaadanaya taas weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala tawfiiqda hana waafajiyo ummadana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u gargaaro ilaahayna subxaanahu wa tacaala ummadaha dhiban ee muslimka ah ee reer Gaza ka mid yihiin allah u gargaaro ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowga ha ka hayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadaas muslimka ah ha xoojiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala allahumma saddid ramyatahum allahumma saddid aaraa'ahum wa sihaamahum allahumma qawwihim ala aduwwika wa aduwwihim اللهم اربط على قلوبهم اللهم أنزل السكينة عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك بأعدائهم وأعدائنا يا قوي يا عزيز اللهم عليك بأعدائهم اليهود ومن شايعهم من الكفار والمنافقين اللهم عليك بهم اللهم شتت شملهم اللهم خالف بين قلوبهم اللهم اجعل بأسهم عليهم اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا يا قوي يا عزيز اللهم سلط بعضهم على بعض واجعل كيدهم على بعض إنك قوي جبار عزيز السماوات والأرض بقوتك يا قوي يا عزيز إلهي سبحانه وتعالى مسلمين تنبيلك استجوغان الله وقرقاره دلقنا الله كساره سيدي أندلس عضي أسبابها دينا الله كديريو قارهان أمد الصومالية إلهي سبحانه وتعالى أسباب تاسكاهيو ضد كيدنا إني قرتان الله قلبي وضا كشبه قبيالد الله قلبي وضا كساره عنصرية الله قلبي وضا كساره إلهي الدنيا جعلك قلبي وضع الله كساره مصالح ذا يرير إيا وحيالها يرير إلى شنيان الدين تودي كوينيان إلهي سبحانه وتعالى قلبي وضع كساره قلبي وضع إيمانك الله قليه ومدن توفيق ذا الله وافجيه ومدن صوماليات سجار ومدن قرآن وأهل القرآن بكجرت توفيق ذا الله وافجيه دينت الله وافجيه kuwa qabsado oo ku socdo oo ku shaqeeya Allah ka dhigo akhyaarta Allah talada ugu dhiibo ardaasha Allah ka kaafiyo ardaasha Allah ka duwo wadadooda Allah ka duwo ardaasha ilaahay kuwa akhyaarta ah iyo talada fiican ee diinta ku socda ilaahay subhanahu wa ta'ala talada ugu dhiibo ilaahay subhanahu wa ta'ala cudurka iyo qabyaalada iyo daadadka iyo abaaraha iyo dhibaatooyinka Allah ka dulqaado faqriga Allah ka dulqaado saboolnimada Allah ka dulqaado khayrka Allah tuso dhulkooda waxa khayraad ka buuxa Allah tuso cid maamusho oo khayr ugu maamusho amaano leh Allah tuso amaano iyo diin cid leh Allah talada ugu dhiibo aamin aamin sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi